تاريخ هيرودوت. تقديم وليد علاء الدين. الأثيوبيون. كان قمبيز قد خطط ل3 حملات، الأولى ضد القرطاجينيين، والثانية تتجه إلى الأمونيين، والثالثة إلى الأثيوبيين المعمرين الذين يعيشون جنوبي ليبيا على سواحل البحر الجنوبي المحيط الهندي. وقد اعتزم أن يرسل أسطوله، والثالثة إلى الأثيوبيين المعمرين الذين يعيشون جنوبي ليبيا على سواحل البحر الجنوبي المحيط الهندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الناصر maanta waxaan ka hadli doonaa dagaalada magacyada oo aan ahayn magacyada dadka loo bixiyo, magacyada wadamada loo bixiyo. dagaal ma ka jiraa mise ma ka jiro? wuu ka jiraa. haddaan soo qaadano mathal yar, waxaa ka mid ah midowga Yurub, wadanka Greega ayaa ka tirsan. wadanka Macedonia lahay wuxuu rabaa inuu kusoo biiro midowga Yurub. mar walba waxaa hor istaaga wadanka Greega. sababta uu hor istaago waxa ay ku sheegaan in ay tahay Macedonia in la dhaho magaalo ku taal wadanka Greega ah. marka waxay leeyihiin Greega waa in ay ka tanaasulaan Macedonia haddii ay rabaan inay midowga Yurub kusoo biiraan magaca Macedonia. dooda runteeda ma tahay in magaalo la dhaho Macedonia darteed ay ugu diidayaan inay midowga Yurub kusoo biiraan ama culays ku saaraan si magacaas uga tanaasulaan? maya, ma aha arrinka intaas. Macedonia waxa loogu dirirayo waxay tahay in uu ku dhashay ninkii Alexander Great ee ahaa ninka aadka ay u qiimeeyaan reer Yurub een u yaqaaniin halyeygoodii taariikhdii hore aynu ku faanaan. marka wadanka Greek wuxuu rabaa in uu taariikhdoo dhan xagiisa u duwo, laakiin wadanka Macedonia waxay ku doodayaan in uu ku dhashay buqcadda hadda ee Macedonia loo yaqaan, oona aabbaha dhalay Alexander uu meesha xukunka uu ka bilaabay. Macedonia iyo Greega waa dad isku isir asalkooda leeyahay. ikhriiqiyiina la isku dhihi jiray, iyaga kaligood maaha, kuwo kalena way soo raacaan. marka wadamo waxaan aragnaa Africa isku haysto webi magaciisa wadamo loo bixiyo oo aan ku kala tanaasulin oo mar walba Congo Kinshasa, Congo waxaasna waa aragnaa. ma jiraan dad ka xanaaqo taariikhdooda sida Soomaalida? haa, way jiraan. wadanka Pakistan waxaa dhex maro webi la dhaho magaciisu uu yahay Sindh. muslimiinta waxay dhihi jireen dadka areas ay ugu tageen intaysan muslimiin ka hor, reer Sindh diintooda ay meesha ku haysteen oo diinta hadda Hindi loo yaqaan, iyo dadka meesha degan reer Sindh iska dhihi jireen. waxayna xiriiriyeen diintaas iyo webigaas iyo dadkooda nool si ay tilmaan uga dhigtaan caadiyan. laakiin muddo kadib sida hadda arkayno, ninka Bakistaaniga haddaad tiraaho magaca horta Pakistan waxa macnaha kuma dhisno. waxaana la sameeyey markii hadda xorriyadda ay qaadanayeen. taariikh horena shaqo kuma laha. Hindiya diintoodii waa la hindiyeeyey, magac Sindhi loo korka laga saaray, magac kale lahayd. wax xiriir aysan lahayd ma jirto. Bakistaanigana wuxuu ku qanacsan yahay hadda gobol ayaa jiro oo Pakistan ku dhex yaal oo webigaas oo maro oo haddana la dhaho Sindh. Sindhigan way ka xanaaqaan. webigii iyo gobolkiina weli waa Sindh.
laakiin magacoodii waxaa qaatay hindida kale soomaalida kelmadda xabashi waxaa la sheegaa inay carabta ka timid ay u bixiyeen oo muxneeduna yahay dad isku dardarsan hadda maanta waxaan ka hadlaynaa arrinka duwan inta aanan gelin marka hore gumaystaha magacyada uu bixin jiray ujeeddo ma ka lahay mise waa iska bixi jiray wadamadan hadda muslimka oo cusub ujeedduu ka lahay مثلا haddaan soo qaadano waddanka hadda Syria loo yaqaan magaca wuxuu ka soo jeedaa qoom hore ugu noolaa jiray oo Ashuriyin la dhihi jiray marka dadka markaas gumaystaha u yimid laakiin dad sheeganaya carab ay ahaayeen afka carabigana ku hadla ha ka soo jeedaan masiixiisa ka soo jeedin dadkaas isirkooda dooda kama taagna laakiin dad isku yaqaan inay carab yihiin oo waddankooda loo yaqaan Sham ayay ahaayeen markay kala jarjareen waxay u bixiyeen Syria waa kelmad ka soo iska bedeshay Ashur marka uu Faransiiska meesha tagay wuxuu isticmaalay niman la dhaho Musayriyiin iyo niman la dhaho Druus iyo niman oo diinta Masiixiga haysto oo Arman ka soo jeeda oo Lubnaan ku badnaa iyo nimankan Musayriyiinta ah magacood xoogaa xasaasiyad ayuu lahay Musayriyiintu waa nin aasay caqiidadan oo ay muslimkan isku raaceen iyo inay ahayn ay muslimnimada ka baxeen ay muslimka oo dhan isku raaceen xataa nimankii ay ka jabeen oo shiicada ahay xataa uma aqoonsanayn inay muslim yihiin oo inay fogaadeen ayaa la aaminay laakiin Faransiiska wuxuu magac cusub u sameeyay wuxuu ahaa Calawiyiin maadaama shiici ay ka jabeen Calawiyiin ayuu u bixiyay si dadka ay uga mid noqdaan sidaasayna hadda ay ku joogaan markaan waxaan gelaynaa Ethiopia iyo meeshii ay ku tiil iyo dhulka oo markaas Ethiopia loo yaqaanay macnaheedu ma ahan in ayaga isku yaqaanay in Ethiopia loo way dhici jirtay dad kale ee magacyo u baxsadaan ama magacyo ay ilaabeen ee ka daba wadaan مثل ير هدان كسيو ودن كان كنول هاي وحلو يقان نيذرلاند دت كنول لا داوي ديسو يا تهي وعقليه نيذرلاند لكن أنا وحاول نقيني هولند ماشي أنا داتي معه وحين نقني صار لبا قول أو كلية ودن جيرمان عرفت وحي تقانا مقع هور يقل هايين والله هاي ألمان أوستري وحي يغاني نمسا iyo waxyaabo badan noocyo badan oo noocaas magacyo ay weli jiraan marka ku daalimeena inay isku yaqiineen in la dhaho Ethiopia iyo in kale horta sheekadu waxay ku saabsan tahay Herodoot oo ka qoray Cambyses nin la dhaho oo Farisi ahaa oo rabay inuu qabsado wixii xadaarad markaas jiray oo inuu weeraro jeclaay iyo wixii dhaxmaray sheekadu way dheer tahay marka waa idin soo deyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxyaabaha Herodoot uu qoray oo xiis geliyay waxay ahayd oo hadda ka muuqda Soomaalida inay jeclaa jireen inay cunaan cad iyo caano ay u yaqiineen raashinkoo dhan cad iyo caano waxa kale inta uu xusay in dadka meeshaas degan waa xeebta badweynta Hindiya xaafuun ilaa iyo Kismaayo xaafuun ilaa iyo Malindi waxa meeshaas ku tilmaan waxa ay ahaayeen dad aad dagaalka ugu degdego aadna u caroodo degdeg u caroodo
الأثيوبيون. كان قمبيز قد خطط ل3 حملات، الأولى ضد القرطاجينيين، والثانية تتجه إلى الأمونيين، والثالثة إلى الأثيوبيين المعمرين الذين يعيشون جنوبي ليبيا على سواحل البحر الجنوبي المحيط الهندي. وقد اعتزم أن يرسل أسطوله لمحاربة قرطاجنة وجزءا من قواته البرية للهجوم على الأمونيين. أما بالنسبة إلى الأثيوبيين فقد قرر إرسال الجواسيس بحجة تقديم الهدايا لملك إثيوبيا، في حين أن الغرض الحقيقي وراء ذلك جمع أكبر قدر من المعلومات، لكنه أراد بشكل خاص معرفة ما إذا كان ما يطلق عليه مائدة الشمس حقيقة أم لا. وقصة مائدة الشمس أن هناك مرجا يقع في أطراف المدينة يحتفظ فيه بمؤونة كبيرة من اللحم المسلوق من أنواع الحيوانات كافة، ومن واجب الحكام المحليين سلق اللحم ووضعه هناك في الليل، وفي النهار بإمكان أي شخص أن يتناول ما يشاء من هذه اللحوم. ويقول سكان البلاد إن اللحم يأتي من الأرض بشكل تلقائي، وهو هدية الأرض لهم. بعد أن تقرر إرسال الجواسيس بعث قمبيز إلى الفنتينا لاستقدام بعض الرجال الإكتيوفاجي أكلة السمك الذين يعرفون اللغة الأثيوبية، وفي الوقت ذاته أصدر أوامره للأسطول بمهاجمة قرطاجنة، لكن الفينيقيين رفضوا تنفيذ المهمة بسبب الأواصر التي تجمعهم بالقرطاجينيين، ولأن شن الحرب ضد أبنائهم إثم وشر لا يمكن أن يقترفوه. ولما كانت بقية القوات البحرية أضعف من أن تقوم بالحملة بدون الفينيقيين، فقد أفلتت قرطاجنة من قبضة الفرس، إذ إن قمبيز رأى أنه من غير المناسب الضغط على الفينيقيين لدفعهم إلى المشاركة، فقد كانوا يخدمون في أسطوله طواعية، وقواته البحرية تعتمد عليهم كل الاعتماد. وكذلك القبارصة تبرعوا بتقديم خدماتهم إلى الفرس واشتركوا في الحملة على مصر. أرسل قمبيز الرجال الذين تم استدعاؤهم من الفنتينا إلى أثيوبيا، وأعطيت لهم التعليمات بما سيقومون به، وحملوا هدايا قمبيز إلى ملك أثيوبيا، وكانت ثوبا قرمزي اللون وطوقا ذهبيا وأساور وعلبة من المرمر بداخلها صمغ المر وجرة من نبيذ النخيل. ويقال إن الأثيوبيين محور هذا الاهتمام هم أطول وأجمل شعوب الأرض قاطبة، ويتميزون بقوانينهم وأعرافهم، وأغربها طريقتهم في اختيار ملوكهم، ذلك أنهم يختارون أطول الرجال وأقواهم ليصبح ملكا عليهم. وصل سفراء قمبيز الإكتيوفاجي إلى أثيوبيا، وقدموا هداياهم إلى الملك، ومعها الكلمات التالية: لقد أرسلنا قمبيز ملك فارس رغبة منه في صداقتكم والتحالف معكم، وهذه الهدايا التي حملنا إياها أحبها إلى نفسه. إلا أن ملك أثيوبيا كان يعلم أنهم جواسيس، فأجابهم
لم يرسلكم ملك الفرس محملين بالهدايا لحرصه على صداقتي، لقد أتيتم بهدف جمع المعلومات عن مملكتي. إنكم كاذبون وملككم غير عادل، فلو كان لديه أي احترام لما هو حق لما اشتهى مملكة غير مملكته، أو استعبد شعبا لم يقترف بحقه أي ذنب. قدموا له هذا القوس وقولوا له إن ملك أثيوبيا ينصحه بأنه عندما يستطيع الفرس شد قوس بهذه القوة وهذا اليسر فليحشدوا عندها جيشا من الأبطال الصناديد وليغزوا بلاد الأثيوبيين المعمرين، وإلى أن يحين ذلك الوقت فليشكر الآلهة لأنها لم تدخل في عقول الأثيوبيين أمر اجتياح الدول الأخرى. ثم نزع وتر القوس وقدمه لهم، والتقط الثوب القرمزي وسألهم ماذا يكون وكيف يصنع. ولما وصف له الرجال الصباغ وكيف يكون علق على ذلك بأنهم مخادعون، وهذا الثوب المصبوغ خدعة أيضا. ثم سأل عن السلاسل الذهبية والأساور، ولما أجابوه بأنها تستخدم للزينة ضحك وقال بأنه لديه أقوى منها، لأنه كان يعتقد بأنها قيود. ثم سأل عن صمغ المر، وبعد أن سمع وصفه وطيب رائحته عند التدليك به كرر لهم ما قاله في الثوب القرمزي. وأخيرا وصل إلى النبيذ، وبعد أن علم مراحل تصنيعه شرب بعضا منه فوجده لذيذ المذاق. ثم سألهم عما يأكل ملك الفرس، وما هو أقصى عمر يبلغه المعمر في بلاد فارس. ولدى سماعه وصف الطبيعة هناك وزراعة القمح، وأن ملك فارس يتناول الخبز، وأن الفرس لا يتجاوزون سن 80 إلا فيما ندر، قال إنه ليس من المستغرب وفاة أي شخص يتناول الروث في سن مبكرة كهذه. وأضاف أنه ما من شك في وفاتهم في سن أبكر لولا هذا الشراب الذي يمدهم بالطاقة. وهنا أشار إلى النبيذ، وهو الشيء الوحيد الذي أقر للفرس بالتفوق فيه. وسأل المبعوثون بدورهم الملك عن سن الوفاة في أثيوبيا وماذا يأكل الشعب، فقيل لهم إن معظمهم يعيش ليبلغ 120، وإن بعضهم يتجاوز ذلك، وإنهم يأكلون اللحم المسلوق ويشربون الحليب. ولما أعرب الرجال عن دهشتهم في أن يتمكن أي إنسان من بلوغ مثل هذه السن المتقدمة اصطحبهم إلى نبع تفوح منه رائحة البنفسج، وتجعل بشرة المستحم في مياهه تتلألأ وكأنه استحم بالزيت. ويقال إن مياه هذا النبع قليلة الكثافة لدرجة أنه ما من شيء يطفو فوق سطحها، بما في ذلك الخشب أو أي مادة أخف منه، إذ تغوص جميعها إلى الأعماق. فإذا كانت هذه الرواية صحيحة فإن استخدام الأثيوبيين المستمر لهذه المياه هو ما يجعلهم يعمرون. بعد زيارة النبع قادهم الملك إلى السجن، حيث شاهدوا السجناء مقيدين بالسلاسل الذهبية، ذلك أن البرونز في أثيوبيا هو المعدن الأكثر ندرة والأغلى ثمنا. وبعدها ذهبوا إلى معاينة مائدة الشمس. وفي النهاية تم اصطحابهم لرؤية التوابيت، والتي يقال إنها مصنوعة من زجاج الكريستال. وفي الدفن يقومون بتجفيف جثمان الميت إما بالطريقة المصرية أو ربما بطريقة أخرى،
ثم يحاط الجثمان بالجص الملون ليصبح مشابها للشخص في حياته، ثم يوضع في اسطوانة من الكريستال مجوفة من الداخل وتغلق بإحكام. والكريستال متوفر لديهم بكميات كبيرة ويصنعونه بسهولة، ويمكن رؤية الجثمان بوضوح داخل الأسطوانة، ولا توجد رائحة كريهة أو ما يدعو للإزعاج. ويقوم أحد أبناء عمومة المتوفى بالاحتفاظ بالأسطوانة في منزله لمدة عام كامل، ويقدم لها بواكير الفاكهة والأضحيات، وبعدها توضع بالقرب من المدينة. بعدما رأى الجواسيس كل ما استطاعوا رؤيته، عادوا إلى مصر لتقديم تقريرهم الذي أغضب قمبيز لدرجة أنه بدأ زحفه باتجاه أثيوبيا دون أن يهتم بتوفير المؤونة لجيشه أو يفكر بأنه سوف يأخذ رجاله إلى آخر الدنيا. فسماعه هذا التقرير قد أفقده عقله تماما، مثل رجل مصاب بلوثة ذهب على رأس قوة من الجنود المشاة، تاركا وراءه الجنود الإغريق الذين كانوا يخدمون تحت إمرته. وعندما وصل إلى طيبة أرسل قوة من 50,000 رجل للهجوم على الأمونيين واستعبادهم وإحراق معبد زيوس آمون، ثم تابع مسيره إلى أثيوبيا ومعه بقية قواته الذين نفدت مؤونتهم بعد أن عبروا خمس المسافة التي تفصلهم عن أثيوبيا. فاضطر الرجال إلى قتل دوابهم لتأمين الطعام، إلا أنها نفدت هي الأخرى. ولو أن قمبيز عندما رأى هذا الوضع قد عاد أدراجه لأظهر شيئا من الحكمة بالرغم من الخطأ الأساسي الذي ارتكبه، إلا أنه لم يهتم بما حدث واستمر في تقدمه. وللبقاء على قيد الحياة اقتات الجنود بالعشب المتوفر في الريف، لكنهم حينما وصلوا الصحراء أصبحوا يأكلون بعضهم، إذ يختارون بالقرعة واحدا من بين 10 رجال ليصبح طعاما لهم. وكان هذا أكثر من قدرة أي إنسان على الاحتمال، حتى قمبيز نفسه عندما جاءته التقارير بهذا الأمر تخلى عن فكرة الحملة على أثيوبيا وقفل راجعا، ووصل طيبة بعد أن تقلصت قواته إلى حد كبير. ومن طيبة ذهب إلى منفيس وسمح للإغريق بالإبحار إلى وطنهم. وهكذا انتهت الحملة على أثيوبيا.